Bismillaahi Raxmaani Raxiim kusoo dhawaada Istanbul Kitchen. Maanta waxaa sameynaa insha Allah bariis iyo malaay. Waxyaalaha ka kooban insha Allah malaayga noocan aan isticmaalayaa. Insha Allah waa soo dhaqay waa xoogaa baa aan jarjaray jeexjeexay ama sarsaray dhaqay insha Allah. Marka malaayga noocan aan isticmaalayaa insha Allah waxyaalaha kale daraayo inta kabsar caleen iyo toon waayo isku tuman. liin dhanaan xawaash dhuudhuuban oo shiidan waxaan kaloo ku darayaa tumar haruud aan ku darayaa liinta iyo filfil isku shiidan paprika aan isticmaalaa barbarooni shiidan kumar waxa weeye basbaas shiidan isagana intana waxaa ii yaalo squash u taqaanid ama bacar aan soo jarjaraan ku dar doono iyo baradhaan ku dar doona kana ooga dhigayo insha Allah cusbo ku daraayo insha Allah intaas ka kooban hadana waan qasaneynaa insha Allah xawaashkan qasaya saliid saytuuni ama olive oil soo taqaanid insha Allah waxaan ku darayaa haruud وحيرة هرودة بسباس كان قدرة يا شو بسباس الله إنه عدد بسباس كجعلنا بحين كأسكر فكرتها إن شاء الله لينتي في الفيش إسكوشي يدني واي إنت أنا بربروني قشيدن بابريكا waxaan ku darayaa liin dhanaantii xawaashkii shiidnaa kabsar caleentii iyo toontii marka waxyaraan isticmaalaya kulli madal isticmaalayo bajigaan ku darayaa cusbo asagaan uga dhigayo cusbo kale kuma daraayo kan waaye marka intana isku qasayaa maasha Allah xawaashidii waa soo qasay marka isagaa marmaranayaa dhex kala la rabaa wax yaraan rabaa inaan la dhigo ofinkaa rabaa inaan kariyo insha Allah maanta waxaa la dhahay bariis iyo malaay aan rabnaa malaay banaan ma imaaday maxay dhaheen makaalina keentay ma ahan heesti insha Allah saasa kusoo wadaya insha Allah si fiican aan usoo mariyay insha Allah marka waan yar dhigayaa wax yar marka baradhada leeyahay waxaan wax yaraan kusoo kariyay ovenka aan rabaa inaan haddana ku celiyo insha Allah malaayga inaan dhexda saaranayno dhex dhigaysaa insha Allah bocorkana korka laga saaraya dhinaca sooskii aan qorsheeyay afageed way iisii kuleysan 350 ii geysayada 30 ilaa 35 daqiiqo qaadana insha Allah ovenkeena gashanayna maasha Allah intuu fishka noogu jiro ovenka malaayga noogu jiro ovenka insha Allah waxaan karsanaynaa bariiskan waa soo dhaqay waa 2 koob iyo wax yar fiican aday ugu yaraan 4 jeer waa inaad bariiska dhaqdid maasha Allah dhigatid insha Allah biyahana waa ka meero waa iska dhigay dhinaca iska dhigay insha Allah bariis si fiican u dhaqa inuu macaan haduu idin kusoo baxa rabtiin insha Allah waxaa la rabaa marka dhaqsidaas faraaga inuu uga soo baxo insha Allah waxaan kaloo ku darayaa basal iyo jarjarana inta ii taalo barbarooniga labada nooc waaye aan ku sameyn doono aan ku dari doono insha Allah inta waxaa ii yaala heel dhaga yaro
qorfaha iyo waxa ii yaalo xawaash dhudhuub waaye kuminsiin insha allah. intan waxa ii shiidan kabsar caleen iyo toon waaye inta iiga soo hartay. waxaan rabaa bariiska inaan ku kariyo waa garlic and cilantro isku shiiday insha allah, isku tumay ahana xawaash dhudhuub oo shiidan waa insha allah. intaasay ka kooban yihiin iyo waxaan kula darayaa wax yar oo subag bariis haddaan karinayo wax yar subag aan raba aan jeclahay inaan ku daro. cusbo kuma daraayo, cusbo kana ooga dhigaya insha allah. haddana dabka aadaynaa bariiskeena karsaneynaa insha allah. birtan sababtaasa wax yar oo saliid aan ku shubay canola oil aan isticmaalo insha allah. basasheena ku darsanayna waxaan kaloo ku darayaa subagii insha allah. marka basasheena soo shiilaya oo isku soo noqonaysa barbaroonigaan ku darayaa axyaarkan rabaa inaan ku shiilo. barbarooni haddaada jeclaan waa ka dhaafi kartaa, marka choicekada iskale. dadaa jecleen aa jiro barbarooni inaan ku daro, laakiin marmada waxaan jeclay inaan ku daro insha allah. marka xoogaa waa yar soo shiilayaa oo isku soo noqon. markan xawaashadeyna ku wadayaa waxyaraan kusoo shiilaya aragta inay isdhex gashaa la rabaa xoogaa before aan bariiska ku daro. markan bariiskeena ku darsanaynaa insha allah. marka si fiican biyo ku daranaa raba inaan u qalayo insha allah. sii qalay bariis macaankiisa marabtaa marka hore qalaysid waa biyo intaada ku daran si fiican u qalaysid insha allah. saasoo waxaan ku darayaa toontii iyo xawaashka xoogaaya marka ku daboolayaa iyaga intaan walaaqo carafta inaan dhex gashaa raba wax yaraa ku daboolaya insha allah. si fiican aan usoo qaleeyay insha allah. inaan u qalaysid marka maasha allah. haddana biyaheena biyo kulul waaye, biyo kululan ku shubaya biyaha karkar waaye. waxaan kaloo ku darayaa maraq digaagii cusbada ooga dhigaya isticmaala bes daboolkaa saaraya insha allah. waan isu soo noqonayna. bariiskana waa inaa u qiyaasid biyaha ka buuxinin, marka inuu kaa jeecan lama rabo. bas waa la huurinayaa bariiska, huurisku ku karaa inta kale insha allah. marka daboolkaa saaraya isu soo noqonayna maasha allah. bariiskeena biyaha wuu soo bursaday, marka waxaan rabaa inaan wax yar huuriyo insha allah. markaa huurinaysa waa inuu biyo dhan uu ka dhamaystaa uu bursadaa insha allah. isagoo biyo ku jiro ha huurinin, bariiska uu kaa jilcaya insha allah. marka waxaan yeelayaa waxaan ku darayaa wax yaro oo food color kan jaalaha waaye isticmaalayo. iyo waxaan ku daadinayaa raisin zabiib labada kala nooc insha allah. intaas isticmaalayo marka foilkan korka saara insha allah. daboolkiisa dabkana low aa u geynaysaa. daboolkaa saaraya insha allah. waa isu soo maasha allah. bariiskeena waa noo diyaar insha allah.
نفس نقرأ داتا لرابس إن شاء الله. بس ملايكين ويكرسي هاي أنا بقصوش وأنا إن شاء الله وقصون قلينا ما شاء الله. بريس كيني ملايكين سان وقصوبحي إن شاء الله. قضي يرو اسكفوضت إن شاء الله. هذا كهشين سبسكرايب كلايك شير كامن كنوادين عينا.